kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan akhyaarta nagu xiran meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu kaga hadli doono xaflad qur'aan oo dhawaan lagu qabtay magaalada Wilmar ee gobolka Minnesota ee carigan dalka Mareykanka. xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay culimo oo diin, macallimiin, waalidiin iyo arday. waxaa lagu qabtay masjidka weyn ee magaalada Wilmar. macallimiinta juhdiga geliyay ardadan ayaa kala ah macallin Maxamed Suldaan iyo macallin Faadimo Yuusuf. waxa ayna tahay markii ugu horeysay oo ay xaflad noocan oo ay soo bandhigaan. macallimiintan ayaa juhdi fara badan ku bixiyay caruurtooda inay baraan Quraanka Kariimka, sunnada, tawxiidka iyo tarbiyada Islaamka. xafladan waxaa si hagar la'aan ah u xiriirinayay Sheekh Cabdiraxmaan Geele, wuxuuna xusay inay muuqato dadaalada ay sameynayaan macallimiintan. haddaba aynu dhageysano sida ay u dhacday xafladan daawasho wacan. القارئ أيوب شيخ إن شاء الله تعالى على يسر أيوب شاع داود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ما شاء الله جزاه الله الخير أيوب إلهي ميزانك حسناتك وسعادتك. إلهي waxaan ka baryaynaa inuu noqdo nin qaari oo barakaysan innagana uu nagu anfaco quraankiisa isagana insha Allah taala uu noqdo nin ilaahay barakeeyay oo ummadda anfaca. waxaan runtii aan maanta farxad inoo ah san hore u sheegay inaan joogno arday quraanka dhamaysay iyo arday tartantayba inaan xafladeeda joogno.
waxaan rabaa inaan wax yar oo taariikha aan reer Wilmar aan ka dabageeyo dad badan oo Wilmar gadaal ka soo gaaraa jira oo taariikhda u haynin horta ummadu wax akhrista oo inta badan dib wax u fiirsamanay kolba wixii hor yaalaan fiirinaa oo waa dhaqanka iska Soomaaliya oo dhan weeyaan maalinka waxa taagan baa wax ku qiimeynaa waa dhaqan Soomaaliyeed laakiin in la isxuso oo taariikhda dib loo fiiriyo oo wixii la soo maray waxa la haysto iyo waxa loo baahan yahay la isweydiiyo waa shay laga maarmaana waxaan rabaa inaan maanta insha Allah taadiin sheego runtii Ilaahay fadligiisa Maxamed Suldaan iyo Macallin Aadan waxay ahaayeen dadkii ugu horeeyay ee magaalada Wilmar dugsi Quraan dhiga iyagu oo ummaddu ay u baahan tahay walibana dadkuna ay shaqeeyaan la daalan yahay dadkuna inta ka yar yahay masaajid aan la haysanin ay waqti gelin jireen marka taariikhdaasi waxaan u leeyahay إلهي وحولي لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعلم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير معنى هذا وحويان باهي مركز يشتو عندك قرب استاكتا بحساب جود وقت جلسة وهيك خير بانتا مركز أمد الروح والبقو قارن نغضو oo dad xufaad ay yimaadaan nin walba oo meel furto marka kadib ruuxa baahidi wala neel aad wax ka soo qaataad leedahay marka Maxamed Suldaan iyo Macallin Aadan ba waxaan leeyahay horta jazaakumullahu khayran ducay mudayiin dadkii reer Wilmar baa garanaya waa oo 5 kii xilligan ka hadlayo marka saada waxa laga yaabaa in ninka daa badan baa u qarsoon laakiin waan yaraan laftay garmaan lahayn caruur badan gabdho badan oo la guursanin buu macallin ahaa haddana caruurtooda ay qalin jibinayaan oo maanta ay caruurtooda u fadhiyaan oo xilligaana gabdho yaryar ah oo isaga macallin ahaa iyagoo yaryar oo 5 jir 6 jir 7 jir ah marka Maxamed Suldaan markaan saaleeyay isaga laftiisa daadiisa yana lagu mashquulin marka Maxamed iyo Macallin Aadan labadaba runtii magaalada Wilmar waxay ku leeyihiin galad bay ku leeyihiin أنا يشيء ما يديك أي شيء صدقنا إلا أنا رأول مرتبة أنا عارف تيجي لكن أنا يشيء ما يو وحنا صوتي وحنا هاي لكن يديك أي شيء دورنا تاريخنا إلا خصوصنا هذا مهم ويان معلم فاطمة ورنتي أنا دوسي أنا جودي سوق لسي وتكي دبنا وجاي منها لكن دلال كيف بحسي هذا الموضوع يلا ما هاد جاني إلى هاي وأنا ما علمنا مركا وحنا أنت أنا هذا الكلام ده inaan ku soo dhaweeyo sheekheena aabbaana runtii ninka isagana hadda dacwada aabbaana ogaan aad u jecelahay Sheekh Cabdullaahi ibn Usuul kalmad insha Allah tabaarujina oo inoo soo jeediyo sheekh soo dhaweeyo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى أجرها كسيا شيخ عبد الرحمن شيخ حسن قيل إن شاء الله تعالى ماشي ونوجي ميدا وكسر درف كريه أصلا ما لك تدونه هي إنه إنك ما أعرف والمرحان وإنه وقفته ما تقارن أثرت نظرك ثاني الرادات كني وحيلا فرق الله وحي إنه قلت لي واج أنتي وهان حسوس تامر كان أركين حسن قيل النبي عليه الصلاة والسلام وحول هي خير الناس أنفعهم تذكر كانوا خير بدن وكانوا نعفق بدن waxyaalaha aad aragtaan ee masaajidka ku dhadhagan maartay taariikhaha iyo makarafoonnadan iyo waxaan oo dhan ninkii sababta uu ahaa buu ahaa mataqaana in masaajidka la soo dhigo ilaa haddana lugtu nugula jiraayo maalin walba wixii maartay dhaqdhaqaaq oo diini oo ka jira masaajidka insha Allah tacaala qayb uu nagala qaataa intaa kadib waxaan u mahad celinayaa oo kaleeto gabdhaha barakaysan sidan xafladan iyo maartay nidaamkan iyo inoo sameeyay waxaan oo alaaba iyo waxaan oo khayr isku keenay meeshan mataqaana waxa inoo sameeyay inta markaan ka gudbo waqtiga oo yar sababtiisa insha Allah tacaala waxaan rabo inaan waalidka laba kelimo dhaho insha Allah tacaala labada kelimo Luqmaan al-Hakim markuu la dardaarmayay ilmihiisa wuxuu yidhi yaa bunayya aqimi as-salaata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaabaka inna dhalika la min 'azmi al-umur wiilkaygiiyo aqimi salaada ما تقارنا معروف كان أمر منكر كان رهيب واصبر على ما أصابك وحكي هلانا كصبر مركب وشقد الله جربه والدك إني علمه هذا كل دارمان أو أي دهان والدك وحال ربا مرة والبعلمه سإنه أقدر دارمه إنه ما تقارنا إله سبحانه وتعالى دون كيس هذا
نبي الله يعقوب مركو دمان هي المهيسة وحكو الله دردم ويلي ماذا تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آباك محاد قداشي عابدي دونتان أساقوا نفتها يسا أيو عيالك سينتو يسوي يريبا وحكو يلي ماذا تعبدون من بعدي ورقداشي محاد عابدي دونتان أربعين إلهي غاغا يا إلهي غا أبها إبراهيم بن عابدي نابد مركا والدك وينو مركا مسؤولية طاقاته oo ilmaha uu mataqaana jihayntiisa iyo waxtarkiisa iyo tusaalihiisa xagga diinta waa inuu waalidku mas'uul ka noqdo halna ogaado waxaan inagu mar walba ilmaha u sheegnaa inay ilmuhu maartay caasi inagu noqonin oo inagu aan xaq ku leenahay waalidka ilmuhuna xaq bay inagu leeyihiin ayaguna xaq bay ciyaalkuna inagu leeyihiin min xuquuqihim waxaa kamid ah bitacliimi inaad ilmaha wax barta ayaa kamid ah ilmaha xuquuqda ay inagu leeyihiin inaga waalidka oo haddii hadhow aadan gudanin ilaahay uu kugula xisaabtamahayo oo alla uu ku ciqaabahayo maxaa yeelay zamankii Umar bin Khattab uu khilaafada islaamka hayay ayaa waxaa dhacday nin baa ka soo dacwooday wiil uu dhalay wuxuu yiri wiilkayga caasi igu noqday amiirka islaamka marka waxaan rabaa wiilkan inaad la hadashood ii ciqaabto wiilkii uu dhahay wiilkii baa loo yeeray wiilkii markii loo yeeray wuxuu ku yiri aabaha baa ka soo dacwooday maxaa dhacay wuxuu yiri wax xaq aabahay ma ku leeyahay uu dhahay aniga wax xuquuq oo leeyahay ma jiraa buu dhahay amiirka islaamka aabahay uu iga soo dacwooday waa sax laakiin wax xaq aan anigu aabahay ku leeyahay ma jiraa mise kaliya ba xaq ugu leeyahay maya xaq baad ku leedahay buu dhahay toddoba xaq buu sheegay toddoba xuquuq yaad ku leedahay buu dhahay oo kamid tahay ilmaha waxbarashadooda hortu ilmaha markaad guursanayso hooyadii inaad hooyo fiican guursato markuu dhasho ilmuhu inaad tasmiyo wanaagsan oo magacawdood magac fiican u bixisay ilmaha oo magacyada gaaladii iyo waxyaalaha shayaadiinta iyo aad u bixinin inaad caqiiqa ka samayso ilmaha markuu dhasho aad u magac bixiso xoolo ka qasho sidii Nabi Maxamed Alayhi Salaatu Wasalaam sameeyay gabadha hal neefa wiilkana laba neef laga qalo xuquuqda kale uu ku leeyahay waa inuu tacliim baro waa inuu marashi iyo masruuf siiyo hooyadii iyo cunugii oo noloshoodii uu kafaalo qaado hawshii markuu u tiriyay Umar bin Khattab wiilku wuxuu yiri dhageyso horta aabahay hooyaday markuu guursan hayay gabadh islaama ma guursanin aabahay gaalo majuusiyada ayuu guursaday buu gaalo majuusiyada ayuu aabahay guursaday buu hooyaday waa gaal majuusiyada diinta majuusada ay aaminsan tahay waa kow magac Soomaha markaan dhashay magac la bixiyay jiclaan baa la bixiyay buu aabahay magac fiican iyo muusa bixinin magac jiclaan waa xarwal baalka dorshaanka la dheey xaarka ka kahaya magaciisa la bixiyay buu aniga waa kan uu ila fadhiya aabahay imaanun barin buu dhahay hal ayadoo quraanka Ilaahay kamid ah imaan barin buu Umar bin Khattab ninkii halka markuu wada arintii tuu fadhiga ka booday yaa wuxuu yiraahdaa caasi ka dhigay maxaa laga soo dacwoonaysaa adaa caasi ka dhigay ilmahane sababtaada aniga igu soo dacwoonaysa maxay tahay marka waalidka waxa la rabaa ilmaha xuquuqda ay ugu leeyihiin waxa kamid ah inaan wax barno oo waliba diinta islaamka aan barno wax barashadu way kala tahay wax barashadu midna waa mid iska faakihaysiya midna waa mid waajiba quraanka iyo cilmiga islaamka in la baro ilmahaaga waa waajib qof walba arinta ogow waa waajib muqaddasa marka waxa weeye ilmahaaga intuu ka gaarahayo qaangaarkii xadul xulum intuu ka gaarahayo aduu waajib kugu tahay inaad wax barto marka ilmaha wax barashadooda waalidka lagu dadaalo ilaahay khayr ha idin siiyo nabigu Alayhi Salaatu Wasalaam wuxuu leeyahay ilmaha markuu macallinka loo geeyo ida qaala al-muallim qul bismillah markuu macallinku dhaw bismillahir rahmaanir rahiim de kutiba sabiyyu bara'atan min an-nar ilmihi waxa loo qorayaa inuu ilaahay naarta bari ka yeelay wa kutiba al-abawayni labadii dhashayna waxa loo qorayaa bara'atan min an-nar naarta inuu ilaahay ka bari yeelay wa kutiba al-muallim bara'atan min an-nar macallinkii inta uu laqin hayina ilaahay inuu bari ka dhigay baa loo qorayaa marka waalido marka ajirkaas aad leedihiin ilmihiina janna ku gala براءة كورات سدار نبي عليه الصلاة والسلام وحاكله أوليه قف كي ماركتي علمه إسا قرآن كبرا إلهي سبحانه وتعالى يوم القيامة محسر كمرك لجوه تاج من نور بالله صورة يا مدح تاج نور يا مدح اللوجرينية مركا آبادا إن شاء الله إلهي هيدي سي خير آبادا والمر وضد في عن عمر والبكود دا على علمه هذا وحبرشة ضودية تربية ضودية هجاجين تودا إن شاء الله تعالى علمها السلا يلا سعاد إذن كنا أجر كأوها شان الجنة أو بشان جنة جهاد كإسلام كإلهي وحوج ديي ونفط هذا قول ويري وحلوج ديي إن الجنة حشو ilmaha ana marka jannaad ku galaysaa janna ayaad ku galaysaa inaad mataqaana ilmahaaga wax barto jannaad ku galaysaa waana ma'muur oo ilaahay bayna amray ya ayyuhalladina aamanu
قوا أنفسكم وأهلكم نارا بولياي دتك إيمانك اللي هلايو قوا أنفسكم نفتين أوجدك إيا وأهلكم أهلك واكوه وعروتنا إيا حاسس كأني ريران مرك أهلك إيا دتك مسؤولية كاسرة مسؤولية جذوق قفك مسلم كيه والدكم إن شاء الله تعالى إن والدكم دريي يقرأ له هذا إن شاء الله تعالى إن مركا إن جارهان هو يوين كبركة سنة خير كبدن وحان ربع المها هذا إني متقنا المها مالك يونا وينجا مقيهين صلاة الصبح مركي اللي تكدسي إسكول هذا الله بعيست أيوم مقيهين ما تودن هبين بركي بيكوي معنا يعني تيري يوحي كتب بيكوي معنا أنت أيكم مقيهين من تطبع كشقة سنة يا وحبة لوش كيا عيال كنا هذا أرتان إسكول هذا مركا تكتان قفكي ويل مريكا كلمكو كريبة عنق البكان سليم قولي ناقاله والله تلسولي عنق البا أو وشكت أو كانسلين أو جار أو أرميه سيء شؤون تسداخلها كلا شيء كذا حالي محل عنتي حالي تيفي ما في رصتي قارمات ساحتي حالي سيء محل وده هي أبها محقونا ويلا محقونا وكانسلين كشكريس المها هتو أركيد مهي يصير مروجنا يا معلم كحوير كانسلين كيسا أضاء عليك والد كالوير marka waxa la rabaa ilmaha waxyaalaha lagu qufay guriga marka dhimaateen Allah fadhiisato guriga markuu imaado cunug nasto oo cuntada aad siiso oo qabaysto oo nasto in Allah fadhiisato oo tiraad hayaa hooyo ii waran xalay maanta waxaad soo aragtay macallinka muxuu idin dhahay xagee adiga laftaadu waa inaad counseling kala noqoto ilmaha la tariya waalidka insha Allah ta'ala intaas laga rabaa waalid ku dheereeyay raali hada وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ilmihiina iyo idinka Allah idin barakeeyo carruurta aad aragtay oo waxay qalbigeena xafladan oo ay kasoo qayb galeen dad aad u fara badan haddaba aynu ku yara nasanno caqiidada kooxa group A iyo B u kala baxay ay soo jeedinayaan ما أعظم واجب علينا توحيد الله تعالى ما أعظم ذنب عند الله تعالى شرك بالله تعالى كم مراتب الدين وما هي مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام الإيمان الإحسان ما هو الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله كم أركان الإسلام وما هي أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع عليه سبيلا ما معنى لا إله إلا الله معناها لا نعبد إلا الله ما معنى محمد رسول الله معناها أن الله أرسله إلينا بالطاعة واتباع الشرع ما عمود الدين عمود الدين الصلاة ما جزاء من أطاع الله ورسوله دخول الجنة ما جزاء من جحد وعصى الله ورسوله دخول النار
وتصفو الحياة بنور هدى وتضرب نفس له دعة ويبلغ سعد إلى منتهى تنتهي ربي أيا غافرا وجوتك عفوا ولا نسرا ودمع يسير على مصحف به يفسد له سوقا أتى فلا كسجايا لقلب سليم إلى الله دوما تدور رحى فلا سعد من كان ذا همة إلى جنة في أعالي السماء إلى جنة في أعالي السماء جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتضرب نفس له ضعة ويبلغ ساعة إلى منتهى. جزاكم الله إلهي خير يدسيو أنا شيدا waxaan malaynayaa boqolkiiba 80 mayna fahmi soo maaha boqolkiiba 80 mayna fahmi waan garan karaa indhiina ka garanayaa nagasta manashida waxaan jeclaan lahaa in looga dhigo English iyo Soomaali si waalidkuna uu u fahmo inaad wax akhrineysaan adkaar iyo duco iyo waxbarasho tahay laana dad iska dhageysanayeen uu carruurta yarka generation soo kacayna bal luqadooda lagu soo daray hadda kadib macallimiinta waan ka codsanayaa laana qolo walba luqadooda waxay ku fahmayaan baa fiican lagu fahansiiyo marka taana waa codsi macallimiinta dib ugu sheegi doonaa waxaan rabaa in la soo dhaweeyo haddana Asma Ibrahim say Quran oo akhriyo Asma insha Allah soo dhaweeyo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ما شاء الله ما شاء الله جزاك الله وحرر هذا الكهلا يريو قوانا سيرتا وحي بانتها الله سيرت بارك الله فيكم وحرر إن شاء الله تعالى إنا نكسو عنه أنا شيء كلا روا إن شاء الله تعالى إنا هذا سود ويا شكري
cabdi maxamed insha allah shukriha soo dhawaato أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما حرات بهذا أنت يكبر قدرك عند الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما حرات بهذا أنت يكبر قدرك عند الله ما شاء الله جزاك الله waalidiinta iyo dadka duyuufta waxaan rabaa inaan sheego ardayga si kasta wax loo soo baro mikrofoonka marka loo dhiibo waa luuqad kale weeyaan waa hawl kale intaasoo weli telefoon layarkooda watasaa lagu soo ifinaayo wax hawl sahlan maa ruuxa aan fadhiya ee marka aan taagnayn wuxuu leeyahay ruuxan uu halkaa ka dhaho musaa dhaho halkaa uu ka toosiyo oo musaa u hadlaya inuu dhaho laakiin markii mikrofoonka loo dhiibo waa luuqad kale weeyaan ma fahmi kartaan intaad diido yaa haddii magacaaga lu weydiiya xataa garan waaye saa darteed baa natiijooyinka iyo imtixaanaadka qur-aanka tartanka markii la qaadayeyna ardayda markay gelayeen maadaama macalinkoodii ay yaqaaneen uusan ka qaadaynin arday badan oo qur-aanka ku fiican garanaya happy ku ah oo comfortable ku dareemaya markay macalinkooda la joogaan macalinka cusub iyo indhaha cusub markay arkaan wax badan bay khaldayaan saa darteed natiijada imaanaysa lafteedu waxaad ogaataan kuma basicsana oo kuma xadidna aqoonta ilmaha waa ilmaha iyo geesinimadiisa iyo mikrofoonka iyo kolba sida uu dhiiranaya ku xidhan tahay marka arrintaas waa inaad ogaataan ilmaha haddii lagu dhaho lambar 1 iyo lambar 2 ma gelin aadna ogtahay inuu qur-aanka yaqaano waxaad ku darsataa cabsidii meesha ku darso waa cabsanaya ilmuhu ku darso mikrofoonka loo dhibay ku darso meesha mikrofoonkana awood buu leeyahay cabsi gooni ah hawlahaasoo dhan waa inaad marka meesha aad ku darsataan xisaabta macallinkana aynan eedaynin ilmahana aynan dhihin waad i ceebaysay meesha maxaa saa u yeeli weyday halka maxaad uga sixi weyday adiga waalidka haddii lagu soo istaajiyo oo lagu dhaho magacaa waana waa waalidoo inu dhiha oo magaciisa xataa garan waayi lahaa marka insha allah saana ogaada baaraka allahu fiikum waxaan rabaa inaan u yeedho asmaaullahi alxusnaa arday inoo ahrin doonta magacyada ilaahay oo laba cabdullaahi ah cabdullaahiyadaa soo kacaan insha allahu tacaala الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المضل السميع
البصير الحكيم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيد المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الباجد الواحد الصمد قابض المعتدل المقدر المؤول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال بر التواب المنتقم غفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجانئ الغني المحيي المانع الضاء نافع النور هادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كاسمه شيء وهو السميع البصير. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لله وما هذا له waxaan rabaa inaan haddana u yeedho gruubka Rayhana. Your mother? Allah created my mother. Who created your father? Allah created my father. Who created everyone? Allah created everyone. Who created the earth and the heaven? Allah created the earth and the heaven. Who created the earth that we're walking on? Allah created the earth that we're walking on. Who created the plant and the birds? Allah created the plant and the earth. What to say when you go in bed? What to say when you wake up? Who created the water, the rain, and the air? Allah created the water, air, Allah created everybody. Allah created everybody. Allah created everyone. Allah created everyone. Where is Allah? In heaven. MashaAllah. Can you tell me Asma'ullah al-Husna? What's your religion? Islam. What's your prophet? What is Shahada? MashaAllah, MashaAllah. Allah يرعاكم. Okay, who was the first leader of Islam? Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali. MashaAllah, Jazakumullah khairan. Okay. Rayhana, have a seat. جزاكم الله. معلنك عيالك كم قادم سومالي ودقن بيلادا عنقيga maxaa ku dhacay iyo sida iyo hadhow ma taqaana macalinka haganina macalinka imtixaanka kama qaadin shaqo kuma lahayn lajnadii imtixaanka ka qaaday macalinka aniga kamid ahaa marka insha Allah taala wixii maartay cunug walba darajadiisii iyo wuxuu kasbadayna Sheikh Abdurrahman baa inoo yeedinay insha Allah taala wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam ما شاء الله جزاك الله شيخ عبد الله إلهك بركيه شيخ وأد بمهسيه وحن ربينا إن شاء الله تعالى ونهلك المدرعيوعة ومدو خفسان نقنو أخرسكو
kamid ma ah waxyaalaha la dhaho habidkayga weeyaan waxaan jeclahay akhriska waa daruuriyaadka waxyaalaha mar walba sida cabitaanka loogu baahan yahay iyo cunitaanka loogu baahan yahay akhriska loogu baahan yahay ummadu haddayna wax akhrinina liibaan ma gaadho saa darteed waa inaan isbarnaa inaan wax akhrino leanna nabi maxamed salawatullahi wasalaamu calayhi aayadihii ugu horeeyay lagu soo dejiyey maxay ahaayeen lama dhin wax kale waxaa la iqra baa layidhi isagoo waxba aqooninba hadda ma ana biqaari buu yidhi ma u akhrin aqaana maxaan akhriyaa iqra baa haddana la yidhi weli indii xoogaa la cabajujiyey war maxaa ma akhrin aqaano iqra baa la yidhi ilaa markii la yidhi iqra bismi rabbika la waxa u horreeya la baryayna wuxuu ah rabbigii baa la baryay marka hore lagu xidhay marka waxa weeyaan aan wax akhrino akhrinteennuna ha u badnaato caqiidada iyo diinta iyo akhlaaqda iyo dhaqanka iyo taariikhda iyo siirooyinka ruux walba oo waalid ah waxyaalaha cajaa'ibta waxaa ka mid ah waalidiinta aabbi iyo hooyo aan kula dardaarmayo ilmaha la dhihi waa akhri adna wax ma rabti inaad akhrido waxbaad daawanaysaa soo ilmuhu wax daawashadii uu rabaa isna marka waayee adigii baan buu kala bixinayn waxaad rabtaa isagu buu kala bixiyo ilmuhu adaa tusaale waa aduu kugu dayanaya haddaad wax akhridona waxbuu akhrini haddaad wax daawatana marka dambe amarkaa uu diidan yahay uu diidayaa inuu diido mooye qalbiga wuxuu ka leeyahay why don't you read you tell me to read and you're not reading either so marka aan inagu wax akhrino si ilmeen wax u akhriyaan waxna u bartaan barashadana da' ma laha haddii aanu ma garanahaye macallin sheekh maxaa sameeya oo maad barati yaa gacmaha ku haysta yaa kuu diidan cidda kaa hortaagan waay markaad ilmaha xataa wax kale ilmahaga wax lagaa weydiin maayo aakharo walaa taziru waasiratun wisra ukhraa adaa lagu soo istaajin ilmaan ku mashquulsanaa iyo anigu wax ma akhrinayn iyagaan waqti geliyey iyo waalid baa ku imaan meel iskoolaan jooga markaas ku dhihi waqtigayga o dhan waxaan ku dhumiyey isaga wax baraya muxuu waxa u sameeyey oo maxaad waqtiga ugu dhuminaysa aad maad wax barati adigaa kaa hortaagan wax barta oo masaajidka imaada oo ilmaha soo raaca oo macallimiinta idinku wax ka faa'iidaysta taladaydu intaa weeyaan waxaan rabaa inaan insha allahu tacaala aan kusoo dhaweeyo runtii sheekheenna aan aadka ugu dirsanay intii noo yimidna runtii wilmar wax badan aan ka faa'iidaysanay sheekh cabdullaahi dhaaba inala jooga waxaan rabaa kelmad kooban insha allah taala inaan isna siiyo بسم الله الحمد لله الله ومهد سكره سبحانه وتعالى لئن شكرتم لازيدنكم إله سبحانه وتعالى هذا يقول شكر هذا ما يزيادين إياه إن أنظم بيان مذي وحان الله مركا أنظم بيسا هذا الشهادة لكن هذا اللي يسوه المريه وحان إنه وأركان أما صار أركي أما كشير ما شيء إن شاء الله وحيلا يقول سيكون دائرين معي مركا كوبان إلهي من كشكرنا سبحانه وتعالى الذي أنعمنا هذه النعمة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا وألا ينقصنا إلهي بان كبرينا إنه نوزي هذا نغانا نسخة منين كوي كل رغمان إلهي نغاليقو مركا كوبان إلهي بان مهد اسكاله مركا لباننا والدينتي يا معلمينتي جهدي انت يكون بحيان نور كسا أقرب بضن بيتك إلهي كسو عمرين كتابك إلهي ما أنت لشرفه هيو يا شرفت الله والله ما شاء الله تبارك الله runtii ani macallimiinta waan ka tirsanahay waana ka tirsanaa ninkii moodaya inaan ka maqnaana ilka abeeso hoos bay kooda xidhsan yihin maxaa yeelay dhinac baan uga yar bartay biyahan markaan soo noqdana lugtaan la galaa maxaa yeelay 50 stateka waan ku wareegay inta badanna masjid aana ku tukana waa yaryahay nimcada aan wilmar ku haysanna meelay ka jirta ma laha waa xaqiiqatan meel 7 beri 3 beri 4 beri 5 beri oo isku xigtay dugsi laga dhigto ninkii soo arkaa waa nin aan meel kale ka imaaday xaqiiqatan dhowr qodob baan rabaa markaan dhaho mid waa macallimiinta midna waa waalidiinta waxaan leeyahay sidii waalidiinteena hore iyo macallimiinteena hore dhihi jireen 6 qodob oo inagana khusaysa oo qof gaar ah ku soconin baan rabaa inaan sheego koo waxaa la yidhi oo in lagu soo waxbaray ninkii hela macallin qaari ah arday qaylo dheer qalin far weyn loox qaad weyn hooyo qalqaalisa aabba quudhaa ah intaa haddii la helo waxba lama baran waayo intaana waad garanaysaan macnaheeda macallinku hadduu qaari yahay oo axsanu sawd yahay oo tajwiidkii axkaamtii إظهاركي إدقامكي إخفيه إغلابكي كل 27 حرف وصيف عنه كلا صارعية ويل كأجانا ويل مركي وحلو آخرية وقد قرنا صندوق سجى بعديها كل يوم قرنا هنا هذين اسكت دقيقة نجود عدس كنت الله دري ورجي هنيها مروجس تدريد المرة قيس مركي جيل الله صاح حرين هي ويل كقيلة دير آيات وقادنا هي وحلاقة مقلها هي هل كان يترين كمال كفك
macallinka asagoo soo gaadhin wiilkaaga hadduu qaylo dheer yahay ama gabadhaada ay qaylo dheertay halkaasuu waraayadda hagaaji fatxada kor asaa ka dhig kasrada asaa ka dhig buu dhahayaa waa kow waa macallinkii oo qaarihaya ardaygii oo qaylo dheer oo si fiican wax u akrinaya qalin far weyn oo wax lagu qoro uu imaaday oo macallin laga adag yahay oo kitaabkii inoo akhrinayo oo jeebka ku wadano oo markuu daalana sanka qori aan ka gelinayno oo jaajarka la gelinayo baan haysanaa oo haddaad dhulku ku dhufatay haddii kale waadi jibisi midna aan ku dhehayni loox qaad weyn baan haysanaa looxii waxaa inoo bedelay kitaabkan musxafka ahaa ee 604 page ka kooban oo 15 sadar aha oo aayad reeb kale ee nadiifta ah ay markuu sii dhamaanayo ku cusub aad u keenayso waa cajiib waa la isweydiin doonaa hooyo saa u garaboodaysa gabadheedii wiilkeeda oo qalqaalinaysa ordaya uu dugsi aada war orda war labista war xijaabkaa war khamiiskaa war dhahaysa haddaan la helin waxba kala soconayo aabbo bishii markii la gaadho wax quurahaya oo macallinkii iyo ardadii iyo waalidkii wax oo dhan ka farxinaya haddii la helana waxba lama waayo laakiin waxaa dhacda hooyooyinkii inay gaabiyaan oo ilmihii uu liid imaado hadda macallinkii cali cabdiraxmaan wuxuu sheegahayay waa run waxaan indhaha saaray oo macallin u noqday ilmo juscama dhameeyey oo markaad tiraahdo soo akhriso hooyada aabbaha kuu soo akhriyaan hooyadii waana dhaafay oo meeshaa ma garanaysa yid waan arkay qalina iimay soo gadan aabahayna 24 hours buu maqan yahay maxaad ugu jawaabay marka cunugaas 24 hours buu niga maqan yahay aniga 2 aayadoodna waan siiyey bartii aan dhigana kamuun qaadin waa cajiib oo waxyaalaha maalinkaan imaaday aan gabdhaha iyo wiilashii iyo odayaasha baan ku idhi qofkii qur-aan qalalan u baahan sida loo akhriyo diyaar baan u hayay maada 4 iyo 5 haweeney gabdho iskugu jira ii imaaday muddo markaan waday anoon dugsiga la qorinba yaan xaafadda ugu akhrin jiray qaar baan faatixadii dhannayd sixi karin ceeb maaho laakiin waxaa ceeb ah inaad baran weydo nabigeena wuxuu yidhi sal alla alay wasalam المستكبر والمستحي لا يتعلمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم قفك حشوت كبدن هي قفك مارتي كبر كبدن من نوع حمو برتان مرة يري بالو برتان مرة وين بالو برتان سومالي دنا waxay dhigi jirtay wow iyo waa bariyaa badan wow iyo waa bariyaa badan hadda iska loo xijiidato maalin daayanaha kitaabka uu dhamaanaya balse inta aad ku tukanayso aqoonta hadda iska saacdo okay baan noqonaysaa taasi waa waalidka iyo waxaan leeyahay way macallimiinta wanaaga inoo soo qabteen ama inoo hayaan ilaahay weyne waaxidkii inta ugu baa xaqiiqa markii laga hadlo maxaa yeelay odayaasheena waxay dhihi jireen ruux weyn iyo umuliso si waxoogiin hooma sheegaan halka cayalka markaan fadhina waxaan ugu soo dhacay haddaad ogtihiin naga rumaysan maysaan sidaas ay tahay kuwii aad dhasheen aad kari weydeen baan haynaa haddayna marka wada jir ku qabano marra adiga aad haynin marra aniga aan haynin dhaxday ka baxayaan rasuul sheekh cabdullaahi sheegay kuwa 8 saacadood ku gurahay waxyaalaha jin Ameerikaanka inaan ka daadinaa loo baahan marka walaalayaal waxaan idin leeyahay macallimiin ay xajisina midhiinana wadna tusteen waana arkaynaa waalidkuna uu ogsoon yahay kii jifan hurdadu ka soo kacaya wada jirna wax ku qabsana insha Allah taala waxaan idin leeyahay walaalayaal nimcadaha lagu wada hadii Ilaahay yiraahdo barakallahu fiikum jazakumullahu khayr daabe ilaahay waan kaaga baryaynaa kelmadada inuu ugu anfaco caafimaadna uu ku siiyo insha Allah taala sheekha loo duceeyo aad buu u fiican yahay waa culimada runtii fara ku tiriska ah ee markuu yimaado nashaadka inuu soo kordhiyay dhaqdhaqaaqa iyo firfircoonida nin walba ilaahay wuxuu sii karti gooni ah marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro waxaan rabaa insha Allah taala علماء بدن بتشوفتا إيو قراء إيو أضيال مسؤولين لما أنت دوان كعذر دارنا ويقرر على هانيسان وحرر وإنا هالشيخ ويارو ورنتي ميزان يمكل مجالة والمر هدان ليس حقيرين مركي لعركو حياة اللو استاجو عمامة القطورو قو أشارك على السيو ومؤسسين تي مجالة والمر ورجي يقول ري مجالة رنتي أنا نو من حتى أنا نو 5 كيو أنا ميد دمات كيسي أو 6 كيو أنا وصلت شغلي isaga kaliya macalaha iyo macal maxamed suldaan waxaan rabaa wuxuuna mudiirka nagi masaajidka iyo madrasadaba sheekh aadan haduu leeyahay la soo dhiyo macalinkeena insha Allah taala macalin aadan isaga kelmadda ku soo khatimi doona
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إلهي وما هتسكنكم من ملايين اللي هي نسي إسلام نمضى الشيء اللي عقله قصة تم هاي ووحي إلهي بحيه. إلهي وما الحمد لله كمان نانشر يكمان ملايين. الله اسكنه بهذا الكوار هذا لبعضنا وحاسكنه معلمين تي والدين تي ينوسو السمية حفلة قروح ضبطا وناكسن إعادة أجاسمن الله يديم بركيه الله ينهي كجزاء سيو إلهي وحنا نكبر يا نبي سانك حسنات إلهي إنه يدين كبوحي سا قادر الرحمن أنت كدبنا وحام هاتسن إن الله أنت كسر قيبك شيء والدين تا مرت شرفتا ماشي نوجك تضمان أقبل مرتي ما هاد كذب وحي واناها وحينور دمي علماء هنا وعد السي لما أنت وحي له هنا جيلي يوحي الرسول هنا جيلي مركا أنا وحقدر لها والدكم وأنسي تأكيد لها والدكم إنه كنت داله ومعلم كلا صعده ومعلمين تاعي محلي أنت إنه كوريا كردس إنه محليها أفريقيا حولها إنه أفريقيا قلني أنت بدو حقاد يا ضف عنا ديجا جلسوا حتى كوريا إنه لسه إنه كوريا عدينه تجمس أما نيروبي كردس أما صوماليا كردس أما إيجيبت كردس ماشي دون تبعها هات صومالي وميله يقول بدين إنه كردسان marka guryaha waaweyn cid ku guma jirto cidina kuma degana caruurtaadina waatan familygaaga inuu kula jooga adiga hooyo aabe caruurtii way joogaan guriga idin degan marka wal laga yaaba guriga ugu sokeeyo inuu kireysan yahay kiradaasina Afrika unta kira yarta waxa la waxad ka faa'iido ayna jirin xoolala ka galeen ilmahaaga inaad wax walba dhaafisid muhiimku waxa weeye marka inaan ku wargelina aad iyo aad u muhiimsan aad iyo aad inaan iyaga u mugalino ayaa aad iyo aad u muhiimsan oo macallinka la ogaado oo macallinka laga warhayo macallinka ilmaha haya inta badan in waalidku ka warhayaa fiican iyo ilmihiisaba oo la socdo meeshuu jumarayo siduu yahay maanta wuxuu ka baxay siduu ahaa marka insha Allah hadduu Ilaahay ka dhigo Allah idin barakeeyo idinkana Allah idin barakeeyo awlaadana Allah barakeeyo innagoo dhan Allah idin barakeeyo quraankana Allah idinku anfaco Allah idinku anfaciisa qaadire إلهي وحن كبر ينا شدوين كلكن إلهي إنه نضافيه وحي خير إلهي إنه نوافجيه وحي الشر إلهي إنه نقبل بادشو هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله جزاك الله شيخ آذن كلمة هذا شيخ سوء أفقامي كلمة أسوق ويسي ميزان كذولي أولي اسم لها روحي wax ka bartay baa garanayana waa macallin aad u qiimo badan runtii oo ardaydu soo saaray ay hadda hooyooyin yihiin xilligii loo baahnaa walibana in carruurta wax la baro marka jazaakallahu khayr sheekh wilmar baaldahabaad kaga jirtaa intii aan ogeynay cusub ee gadaal ka soo gaadhay sheekh aadan gedin hortaagnaa weeyaan ninka magaalada wilmar dacwadeeda aabbaha u ah ee raggii aasaasay ahaa ee raggii lagu yimid magaalada ahaa ee runtii ummaddan ilaahay uu ku anfacay xilli loo baahan yahay oon culimo la kala doordooranaysa jiray isagu uu sheekh uu ahaa marka jazaakallahu sheekh aadan waxaan rabaa insha Allah taala inaan kelmadda aan barnaamijka dhexgelinaa inaan kelmadda u horeysa u yeero istiftaax ah shukri aadam insha Allah taala shukri alla soo dhaweeyay suhuur afwan suhuur aadan suhuur magadaal bay ka joogtaa ardaydu hor hay soo marto wixii arday ay idinku dhex jira hore la ii keeno. السلام عليكم أيها السادة والسادات. أقدم لكم تحية جاءت من سرور قلبي وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نشكر الله عز وجل الذي من علينا نعمة الإسلام والإيمان وتسيير القرآن، حيث قال عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بعد شكر الله ومنه واشكر معلمي ومعلمتي وهما علمني القرآن، وأسأل الله أن يجعل في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون. وأشكر على كل من حضر هذه حقل القارية لتشييعنا، شكرا لكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد أشرف الصلاة والسلام. ما شاء الله جزاك الله كلمة افتتاحها
شكرا waxaan rabaa insha Allah taala inaan u yeedho haddana gabay yar oo inuu dhag inooga siiyo yar oo fiican jamcaale insha Allah jamcaale halila soo dhawo jamcaale oo inoo gabyahaya maanta صعب قال جاي ما شاء الله ضايع ما شاء الله الله اكبر الله اكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم qiyaamo akhriyaa ruuxii qaariga ahe qof walba halkuu joogsaday jannada qayb buu ku leeyahaye qalbigii fahmaa inuu aqbalo waa loo qirayaaye qolyo badan markii loo fasiray qaatay diinte qabiil qura uma iman qowlkii ilaahay qasalku marida aadamahu qiiro geliyaaye qasaskii quruumihii la ragay bay ku qoran yihiine qadimaayo ruuxii bulshada bara qur-aanka qasnadaha alla buu ka helayaa abaal qaaliyoo badane qabsada dhammaanteen qur-aanka lagu badbaadayaay ما شاء الله ما شاء الله ما أجمل ما أجمل وما أحلى ما شاء الله waxaan ugu jeclahay wax walba markuu kooban yahay markaasuu dhinac xur leeyahay hataa adoon ka dhargin macaansanaya inuu kaa go-a fiican intuu dheeraan lahaa waxaan rabaa inaan haddana insha Allah tacaala aan siiyo kelmado qur-aan kariimka inay noo akhrido Salma Aadan Cabdullaahi Salma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ما شاء الله ما شاء الله سلمى halkan oo kale waan ku nastaa waana ka hadlaa marka hase cabiyaan cabta la idaayo maanta waa maalin farxadeed weeyaan geeri looma fadhiyo waa maalin farxadeed weeyaan marka yaan carruurta laga caburin iyo gabdhahaba xataa alalahaas raaciya haddaad rabtaan waxaan rabaa inaan halkan ku nasto waa meelahaan jecla inaan ku nasto salma hooyadeed horta waa carruurtii uu macallin aadan xataa macalinka u saaya macallin maxamed suldaan iyadiina macalinka loo noqday waxaan rabaa marka inaan idin taariikheer idinka siiya salma waxay dugsiga bilowday October 17 2021 waa ardayga kaliya ay maanta qur-aanka dhameeyeen u fadhina meeshan waxay dhabaysay September 5 2024 salma 9 jir iyadoo ay qur-aanka khatimta ma sha Allah dhah ma sha Allah
runtii waa tusaalaha nool ee Wilmar la dhihi karo in lagu dayday u baahan tahay hooyo kartira iyo aabbo muxuu ahaa hooyo qalqaalisa iyo aabbo maxaa tiri quuraa ah baa dhalay quuraa ah mise quuraa ah quura bixiye miya oday bixiye ah iyo hooyo abaabusha ah dhashay oo soo diyaarisa iyo oday bahasha bixiya oo macallimiinta ka warhaya marka waxaan leenahay Allah baraka waa khatimayna insha Allah taala waxaan rabaa waxaan joogaa adeeradeen iyo culimadeen shuuriya inay joogaan rabaa isna kalmad siiyo oo isaga insha Allah taala soo khatimi waxaan rabaa laakiin inaan waalidiinta insha Allah taala aan hal eedan u sheego oo ah marka koowaad dugsiga maadaama ardaydu ay tartan iyo imtixaan yar galeen waa fasax maalmahan waxaa la soo noqonayaa sabtida berri ma jiro isniintana ma jiro insha Allah taala marka waa inuu sabtida haddii la waalidiinta inay intaa ogaadaan midda labaad sidaan horey ugu sheegay waan ku laga celinayaa imtixaanka la qaaday macnaheeda ma aha ardayda number 1 gashay ardayda kale inay ka aqoon badan waxaa laga yaabaa macallimiin kale ka qaadaysay inay macallimiinta ka faranaheen oo cabsi ay gashay sadarteed aqoontii iyo cilmigii macallinku baray ilmaha wuu la socdaa wuuna wataa waxa kama bedelaysa insha Allah taala waa dhiirigelin weeyaan in ardayda kale ay soo adkeeyaan cabsida iyo ay dareemaan marka imtixaan iska qaadayaan inta waxaan ku darayaa in la yimaado imtixaanaadka waxaan rabaa inaan kalma siiyo shuuri insha Allah taala darkay kalmad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز كوا إلهي بمحل إسكال سيد هرام بالله الشريف من عدم المرواقل من الجبل الله يسلم يا محل إسكال مركز لبا عاثمات يوم مرواقع دون نوو كاملي الله سامر بيننا حسنا يا واجب نواه وحبنا بالله هذي وحي لقى هذي هدي وهم أنت عم بانك هذي لها أنا جنا الله نقول أنفعه وحي أما وعدها أما وحشاقها أما دلالها والله هذي أنت عم بقى مهمة إن أنا أتكلم وأنا رفرق والدين تلمها إن إلى حربيان سلكة وحاء وليبا ويوين كسلكة وين كسلك وحكر ريبا سلكة هدوس اللي وحبا مريبا ارتب الله ويوين كسلكنا أيهين والله في دبرتي أيهين ومر والبا علمه يعني لقى بعد حلينا عبيه إنها كوير النواعيها كهويين كان لنا يدلال كعمود جيام هذا هو سير الغلابان ولي بتوقعنا سمعيان منا معلمين تغليه معلمين تخير الله يدين سيو أدونكم مشغول بدن بقى إسكجرا سيدا مشغول إيه وحيالا بدن وهدي ذاتك الله قول حجر واد ذا شيء خير الله يدين سيو أنا وحلديه جري واد وهذا أدوية أنت هذا وحن أنا حجرين سدح معلمك حضور نقدو وحاوي ولا أفلحا خير الله يديسيو خير الله يديسيو معلمك ألف أحمال مالك وكل بلاو أيا وحول بورنم أو نمعاء أي معنا بلاو نيسان لذلك معلمين كان لي هاي الدلغات يصبر موجية إن لقى إذنك علمها إذنك نوجد الألبلن محيّل إنت لو هذا فريستك يجو استاقي عن كلام هاي روحي لو وحكو الشيء وربو أسيان نجيبه قبع كان الصبر يدلغات الله يديسيه كوخاتا ومحيّل فائدة ما مانع عليهم بالقادة نيسان وأنا يا والدنا هذا النجربين إلهي حديث أكيريسي مركز ذلك معلمين تعليها أنا يا والدين كان أنا بدال معيدنا ولا يوم مرمان حيا لو حاول فرحتها معلمك سيدنا وكلا أما مال يسوق ماذا هدي لي راهو القفك عنه قادي لمبر 1 بون نقطي سين لمبر 2 بون نقطي سيدنا معنا لمبر 4 بون نقطي مالك هسه مني فرحتي معنا ذلك أكيد السي إن أجمعناها عدواء وكوبريو مركا أنا يا نوبري خير الله يديسيو ذلك وولينا دنبي أنا الله دافو دنبي والدنا الله دافو إلى يدم جسمك كل حرين الله نقدره إرزاق الله ما واسعيه إيماننا الله نقصه كل جماعة يسخب سيد الله نقدره ومد إلهي يقول لي معيبان هاي لمبر 1 محيله نمعوين كن دين الإسلام كأن هاي سمى إلهي جنوب الله أيام هذا السلام لكن وقر الله أن هاي بني آدم كان مركو وحيرو عافماد هلو وحوغا شلماد مركز هشو ما أنت واسكتك وينيسين يايو وركين شوريها ما أنت سعود كيسا نركايه واسلم معاك غلطنا مركب بني آدم هو إنكم بيرو وإحنا عندكم قرانو مركب إيمان الله نقصه إيمان الله نقصه أنت مال لركاء ماتي أنت جوبت كسر كرتين دموع الله كافر أنا أقول لهم برنامج جنا الله نقول بشارة كم كل حرينا الله نقول درو
وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلمة برا أرض معلمين تكمل إن شاء الله تعالى. aad baad mahadsantihiin xafladu waa inoo xiran tahay haddii la yidhaahdo waalidiinta dadaalaya ardayda iyo